horta ninka Ethiopia wada maanta ama hawsha dawladda ama gadaha ka soo jeedo ama maamul haado ama nin siyaasi oo sandareerto dawladda cadow ka soo qaata ha noqday runtii waa mid uu ku ay doono hiribkiisana ay hadda iyo dhuwaayadu ay cuni doonaan ninkii sharaf leh qiim leh wanaag leh runtii waxa la rabaa inuu dalkiisa iyo diintiisa iyo calankiisa u difaaco Ethiopia anaga markay xuduudana soo galayso dalow soo galayso gada shirka kuma ninkii aqli laba fahmay dadka aqliga leh ayaan la u sheegaya runtii dawladdaadana inaad garab taagnaato waa wax muhiim marka ninkii arintaas ku dhaqma waa nin qaa'imul wadana wadankiisana qaa'imay runtiina meel xun ayaa u dambeey doonta hood buuna degi jira marka wuxuu yiri war Ethiopia iyo xoogaa jileecan hal ilaaliyo wixiina maartay feejignaata way maqli waayeen maalintii dambe markii geeli laga dhacay ayay u soo cabteen cabashadoodii markuu maartay xoogaa u cuslaystay ayuu gabay ugu jawaabay waa sida hadda dadka doolow marka laga soo gudbinayo muddo kadib darbaaxyada Ethiopia ku dhufan doonto iyo cabaadka ay u soo cabaadi doonaan ama cabashada ay u soo cabad doonaan dawladda Soomaaliya oo wasiirkii gaashaandhigga oo markaa ka bixiyay jawaab weeyaan wasiir jaamac ayaa jawaabta bixinaya macnaha mitaal u soo qaadanaya wuxuu yiri seelow libaaxuba hadduu sabana gaajoodo Siryanka iyo Aaranku seeri jira waayo seeriga galduur iyo hadduu seexda dhirihiisa su'aal eebahay iyo hadduu saajac kaga yaabo su'aal weyn asagoo qami haddii sayd laga doono sarsar waa banaan jiray kabtu saara jeeyahay sad weyn asagoo qami haddii sayd laga doono sadqa mala aleelka nafluhu sara u qaadaaye waraabaha ciyaayo adbaan ku waramayaaye hawalwalin warbaan ku hayaa weekend dabadiise waxyaal nin weyn laga jiray ayaad walabsan doontaay horta ninka Ethiopia wada maanta ama hawsha dawladda ama gadaha ka soo jeedo ama maamul haado ama nin siyaasi oo sandareerto dawladda cadow ka soo qaata ha noqday runtii waa mid uu ku ay doono hiribkiisana ay hadda iyo dhuwaayadu ay cuni doonaan ninkii sharaf leh qiim leh wanaag leh runtii waxa la rabaa inuu dalkiisa iyo diintiisa iyo calankiisa u difaaco Ethiopia anaga markay xuduudana soo galayso dalow soo galayso gada shirka kuma ninkii aqli laba fahmay dadka aqliga leh ayaan la u sheegaya runtii dawladdaadana inaad garab taagnaato waa wax muhiim marka ninkii arintaas ku dhaqma waa nin qaa'imul wadana wadankiisana qaa'imay runtiina meel xun ayaa u dambeey doonta runtii Soomaali waxaan leeyahay meel walba joogtaan qabiilku waa qurun waxa adeegsada dadka maartay maangaabka ah waxa adeegsada dadka faqriga ah waxa adeegsada dadka calaga u adeega runtii qabiilku iyo qabyaaladu waa qurun Soomaali qabiil way ka guurtay qaran bay u guurtay dalkiina difaacda sharafkiina difaacda raas caseer iyo raas kabooni meel walba joogtaan madaxweynaha wadankan waxa ka ah Xasan Sheekh Maxamed runtii ra'iisul wasaarana waxa ka ah mudane Xamse Cabdi Barre iyo golo xukuumad iyo baarlamaan sharaf leh iyo aqal sare noo dhisan waxa rabaa dadka Soomaaliyeed nin walba waajiba saaran inaad sharafkaaga karaamadaada aad muujiso wadan walba aad joogtona wanaag kula macaamisho runtii waad ogtiin annaga dawladaha waaweyn adduunka kuma jirno laakiin dawladaha yaryar baan ku jirnaa haddana nalama quurso karo si fiican ayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto loola dhaqmaa taasna waxa weeye sababta ay ku timid dadka Soomaaliyeed oo sharafkooda karaamadooda iyo midnimadooda iyo diintooda ilaaliya iyo ayagoo madaxa ciidda ka ilaashada maanta madaxa iyaga aan ciidda ka ilaashano dhexda aan xiranno ilaahay aan tala saarano wadankeena aan difaacano qabiil iyo reer ma jiro wadanka Xasan Sheekh Maxamed oo madaxweyne ka ah intuu waqtigiisa ka dhamaanayo cidii ilaahay u qoraana tagayso anaga hadda garamayna ama asaga ha noqdo ama cid kale ha noqoto warkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa tawfiiqda Allahna waafajiyo anoo suldaankii Soomaaliyeed suldaan Maxamed suldaan Cigalle suldaan Hooley Dr. Qaanuni waxaan leeyahay wixii aan gaf ama qalada iga dhacay nafiya shaydaan baa iskale wixii aan asiibana ilaahay baa uga xamdinaqiya warkaygana intaas aan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh